Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wacana wanaagsan axbaabi ii waramaysa ii tihiin way wanaagsan tihiin ana sidoo kale waan idin fiicanahay waa mar kale waqti kale qiso kale qisadeennan waxay ka dhacday magaalada Laascaanood waxay socotay muddo 4 sanadooda waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Waxaan ku jiray dhalinyaradan kubadda ciyaarta ciyaar baan ka soo baxnay waana laga soo badiyay ciyaarta tiimka maalinkaa badiya maahe tiimka laga badiyaa waxay weerar ku qaadaan xaafadaha ay degan yihiin tiimkii badiyay waana laga soo badiyay weerar ayaan ku soo qaadnay xaafadihii ay deganaayeen tiimkii naga badiyay anagoo xoog u xanaaqsanoo 3 ciyaarood na laga badiyo oo ay tani ku tahay ciyaartii saddexaad ee laga badiyo waanu xanaaqsanahay ana waan horkacayaa waxaanu soo galnay xaafado ka mid ah xaafadihii ugu badnaa ee ay deganaayeen tiimka naga badiyay xaafadihii way kala wada galeen waa la kala wada xarooday dukaamadii wixii waa la wada xirxiray ma jiro cid dariiqa socsocota iyo cid maraysa toona cabaar markaanu soo shiitanay een soo qabqablaynay anagoo soo socono dariiq dheer ayaa waxaa naga hortimid inan keligeed bay socotaa cabsi baa ka muuqata way gariiraysaa deeta inantii markaan isku soo dhawaanay waxaan ka codsaday tiimkii la socday inay inantan waxba yeelin maadaama ayna ahayn kuwii ka badiyay inanna tahay ayna wax dhibaataa u gaadhsiinin joojiyaana dhagaxan iyo waxaanay tuurayaan intay inantaasina dhaafiso inantii iyadoo na dhaafin oon waxbaba saanoo dhaafin ayaa naxdintii ay naga naxday dee socodkii soo socotay meesha cidlaa anagoo hawl ku guda jirna iyo keligeeday tahay naxdintii ayaa waxay samaysay way nagu ag suuxday iyadoona dhaafinba ay suuxday deeta wiilashii waxay isku dayeen inay baxsadaan maadaama ay yihiin kuwii dhibta sameynayay xaafadaha shiidayay waxaan ka codsaday inaan inantan dariiqa ka qaadno meel ku weecino iyaguna way iga diideen waxay dhahdeen askartaa kaa noogu imanaysa waana la qabanaya waana la xidhaya maadaama aan rabshad sameynanay inamadii oo dhan way iga wada tegeen keligii baa kusoo hadhay waxaan sameeyey waan ka dul tegi kari waayey waan la joogay ilaa iyo ay kasoo miyirsato markay soo miyirsatay goor maqrib ku dhawaada xaafadihii iska soo baxbaxeen dukaamadii iyo ladharkii dhulkii wixii dhan la wada shiday ayaan wareystay inantiina way soo miyirsatay xageed ka timid xageed u socotay maxaa kugu dhacay waxay igu jawaabtay xaafadeedan ka imid xaafadii ayadii baan ku hooyanayaa waxa igu dhacayna waxay ahayd naxdin aan ka naxay inamo badan oo shiitamayay halkii taleefon baa loo garaacay 2 qof baa u yimaaday sidii baa inantii lagu kaxeeyey maalinkii inantii waxay noqotay inan ku sawiran qalbigayga sawirkeedu ku sawiran yahay hadalkii ay igula hadlaysayna wuxuu noqday cajalad qalbigayga fadhido markasta kusoo noqnoqota inantii waa loo yimid waa la kaxeeyey ana goobtii waan kasoo dhaqaaqay anoo wax sidaasaba uga sii socon goobtii ayaa askar i qabatay xaajiyadii baa la saaray waxay qaadatay 3 bilood in lasoo helo tiimkii markaa aan wada soconay isla mar ahaantaana aan rabshada ku wada sameynanay xadhigiibana lagu adkeeyey 3 bilood kadib xukun baa dhacay waxaa lay xukumay 2 sannadood badh baa layga daayay oo cafis lay fidiyey halkaan kasoo laacay 1 sano iyo badh kumaan xidhnayn magaalada waxaan ku xidhnaa magaalo kale 1 sano iyo badh kadib waxaan kusoo noqday magaaladii Laascaanood intaa aan jeelka ku jiray waxaan isweydiinayay maxaad uga reeban weyday inanta meel aad kala xidhiidho
hadda waxaad ogaan lahayd xaaladeeda caafimaad iyo waxay ku sugan tahay. Danayn aan danaynayo ayaa su-aalahaasi habeen iyo maalin bay iigu soo noqnoqonayeen. Ma garanayo, ma dareen jacayl baa jiray, ma xiisaa jiray, xusuusteydana kamay bixin. Waqtigii aan jeelka kasoo baxeen kusoo laabtay xaafadeedaan imi, waan meydhmeydhay, waan labistay, waan baxay. waxaan u kiciltimay halka xaafadii ay ii tilmaantay ay ayeeyda deganayd ee igu lahayd waan ku hooyanayaa. xaafad dad badan degan yahay maaha, sakaduhu ma badna, in yaran dadunbaa degan, waana meel lays wada garanayo. waxaa jira hal dukaan oo santar u ah oo iskugu imaadaan dhowrkan xaafadood ee meesha degan. iyaduna waqtigaa waxay ii sheegtay inay ayeedeed miciin u tahay oo ayeedeed soo korsatay, xaafadoodanna ay marmar uun soo gaadho, ayeedeed tahay islaan indhala, markaa iyadu ay miciin u tahay. nasiib xumo, waqti badan oon meheradii joogay inantii lama kulmin. waxaan usoo kiciltimay gurigii, aan casheeyey, kaabadan soo fadhiistay. 9:15 habeenimaan ka kacay, gurigan dib ugu soo noqday, game baan iska ciyaaray. 3 habeenimo ayaan seexday. jadwalkaan ku seexday wuxuu ahaa, maadaamoona waqtiga aanu jirin iskuul aan tegayo, hawl maalmeed kalan qabanayo, wax kalan ku mashquulayo ayna jirin oon aroornimadkaa qabanayo, inaan caawa xilli dambe seexdo, beritoole hadduu ilaahay idhaana aan soo kaco xilli dambe, duhur iyo casar intaa u dhaxaysa aan game iska ciyaaro, casarnimadka markay gaadhana aan maydho, iska labisto, dukaankii ku noqdo. muddo ayay igu qaadatay inaan dukaankii ku noqdo, inantii inaan arki waayo. waxaan ka fikiray malaa inantii xaafadda way kasii guurtay oo meel kaleba ayay u guurtay. tilmaanta caadiga may siin. gurigii hooyadeed iyo aabaheed inay ka timid unbay maalinka ay sheegtay, laakiinse tilmaan toosa imay siinin, imay sheegin. laakiin halkan bay tilmaan caadiya soo siisay, oo halkan baa tilmaan caadiya oo aan garanayaa. muddo waxaa ka soo wareegtay 2 wiig iyo 4 cisho. maalin kasta waxay ii ahayd inaan casar kasta soo baxo, dukaanka fadhiisto, 9 habeenimo gurigeega ku noqdo. laakiin maalintani way ka dugan tahay maalmihii hore. goor 5 galabnimo ah ayay inantii xaggaa ka soo baxday. socodkeedu wuu ka dugan yahay socodka hablaha magaalada degan. labiskeedu wuu ka dugan yahay labiska hablaha magaalada degan. waxay noqotay boqorad iiga tilmaaman hablaha magaalada degan. iima dhawa, bidhaan baan ka arkayaa. waan farxay. allahna subxaana wa tacaala waan u mahad celiyey. waxaan u kiciltimay halkii ay kasoo socotay. waan soo tallaabo gaadhay. isla markiiba waxaan u dadajiyey, asalaamu calaykum, walaal xanuunkii sidaad ka noqotay? si naxariis iyo farxad ku dheehan tahay ayay iigu jawaabtay, wacalaykum assalaam, alla waa inankii maalintii ii caawiyey. intaasoo dhan walaa waxaan kuu raadinayay inaan maalinun ku dhahdo waa mahadsan tahay maadaamood i caawisay. farxad bay gashay. waxaan dareemay in qofkan aan la hadlayaa isba qalbigiisu itabiya oo i raadinayay.
waan isbaridinay, waxay ii sheegtay inay wanaagsan tahay, ana sidoo kale waxaan u sheegay inaan wanaagsanahay. waxay i weydiisay waqtigaasoo dhan magaalada maad ka maqnayd? magaaladu waa intan yaroo waan iswada garanaynaaye. waxaan ugu jawaabay waan xidhnaa. sababta lagu xidhay maxay ahayd? inantii intay naaxday dib u istaagtay. waxaan u sheegay maalinkii inaan ka mid ahaa tiimkii rabshadda halkaa ka sameynayay, horkacayeyna. markii ay saa iga dhaqaaqday anaa soo kiciltimay xagga xaafadda u soo socdayna xaajada askari i qaaday. xidhnaana muddo sanad iyo badha, 6 biloodna la i cafiyey. iminka aan soo baxay muddadaa 2 wiigan magaalada joogo iyo 4 cisho aan adiga ku raadinayay. si naxariis iyo kalgacayl ayay igu jawaabtay, maadaamood i raadinaysayba waad mahadsan tahay. aniguba intaa waxaan kuu raadinayay inaan ku idhaahdo waad mahadsan tahay. uma qaadan karo inaad ka mid ahayd wiilashii halkaa fowdada ka sameynayay een ka naxsanaa, misena aad garab ii siisay. aad baa u mahadsan tahay. adigaa mudan ayaan ugu jawaabay. nambaradan kala qoranay, waan kala dhaqaaqnay. kadib xaafaddii baan iska tegay. habeenku habeenadii way iga dugan yahay, farxadduna way igu sii siyaadisaa. taleefankan lacag ku soo shubtay, waxaan is idhaahdaa garaac, haddana waxaan is idhaahdaa ha ku degdegin. jansi waxaa ka soo wareegay muddo. habeen ciida ayaan garaacay, waana salaamay. waxay igu jawaabtay, barashadaadu ma maalinkii unbay ka ahayd? maxaad iila soo xidhiidhi weyday? halkii ayuu ka bilaabmay xidhiidhkayagu. walow aanan u sheegan, haddana waxaan qalbigayga dareensiiyey inay tahay qofkani qof ii soo dhow, i danaynaysa, la hadalkaygana xiisaynaysa. ciiddii baa la gaadhay, waa la soo ciiday, waanu ballannay, waanu soo wada iidnay. kadib waxaan u soo bandhigtay inaan relation la yeesho. waan ogahay igama yeelayso, oo waxaan ahay qof aan noloshiisa dhisanin. camal gacanta kuma hayo, waxbarashana horeba layga quustay. haddana waan ku indha adeygay, waan u sheegtay xidhiidhkaygii. wax kastoon ahayna waan u sheegtay. labada qof hadday run ku wada dhaqmaan, weligoodna waxba kama xumaanayaan. qofka bili-aadanka ah haddaad runta u sheegto ood run kula dhaqanto, meelaad gaadhaan bood gaadhsaan. laakiinse marka hore haddaad been isku maaweelisaan, xidhiidhkiinu ma noqonayo mid sii jira amba sii socda. inantii waxaa ku yidhi, walaalay waxbarasho ma barto, oo horaaba laygaga quustay. wax camalana gacanta kuma hayo. keliya waxaan ciyaari jiray kubad. kubaddiina rabshada awgeed baan u joojiyey. inantii waxay igu tidhi, 2 qalbiyoo isdareemay, jacayl dhexdooda yaalo, ilaahay dartiina isku doortay, talo saarasho ilaahayna sameeyey, waxba kama xumaadaan.
hanti kugu nici maayo aqoon ma lihid, la helaa la waayaa. markaa xaggayga ha ka warwarin. aniguba waxba maan baran, waayo ayeeyo koris baan ahaa. ayeeyaday miciin aan aniga ahayn may haysan. waxay ahayd qof laxaadla, indhuhu ka maqan yihiin, sidoo kale gacani maqan tahay. waxaanu ahaa miciin, kamaan maqnaan karin hal sikin. iskaba daaba inaan ka maqnaado 6 saacadood oon wax ku soo bartee. is-afgarasho kadib waxaan usoo kiciltinnay xaggii xaafadda inantu ahayd. xaafaddii nabad tagtay, anna xaggii gurigeega u kacay. habeenkaa waxaan beddelay dhammaan jadwalkii noloshayda, oon kaga bilaabay seexashadayda. inaan seexdo waqti ka duwan waqtigii aan seexan jiray, inaan kaco waqti ka duwan waqtigii aan kici jiray. 5 salaadood sunnayaashooda aan joogteeyo, caadana ka dhigto. ilaahay tala saarto, aroortii markuu waagu baryo salaada subax tukado, quraacdo, inaan guriga ka baxo, qaraabsi tago, xamaal, kuuli, wax kastoon soo qabsan karayo aan soo qabto. waxaan ka bilaabay inaan noqdo gaadh. waxaan maalinkii gaadh u ahaan jiray dhakhtar ka dhisan magaalada Laascaanood. waxaan geli jiray 6 subaxnimo, waxaan ka bixi jiray 6 maqribnimo. waan ku faraxsanahay boqoradda kusoo biirtay noloshayda, waayo waxay dib iigu soo celisay noloshii aan kasii socday. habeenoo dhan saamaleyl baan ahaa, maalinoo dhanna waan hurday. mar kastoon xasuusta waan u duceeyaa. kadib xidhiidhkii aanu bilownay maanaan yeelan kulan. haatan waxaa la joogaa taariikhda maalintii ay ku beegnayd maalinkii inaanu rabshada ku jiray, iyaduna ay xanuunsanaysay. si aanu maalinkaa u wada xusno waanu ballannay. waxaan sii qaatay warqad iyo sidoo kale buug ay ku qornaayeen xusuuso aniga ii gaara. warqadda iyadaa nagu tala galay. waxaan qoray waqtigii aan ka soo baxay jeelka. waxaan kaga waramayay sanad iyo barhkaan jeelka ku jiray, waqtigan koobanee jeelka ka soo baxay eenan iyadana arkayn. waxaa ku qornayd hees odhanaysa: aduun baan daraada dariiqyada habeenkii, dugsi kama fadhiiste dariiqyada wareega, adna aqal dugsoonba dawadii naftayday iga daawataayo hadba dooc iga egtaaye. hoy hoy ma dabeecadaada manadigu dayaysa, ma jirhkay dubqaniya kugu oonin deeqay. buugga waxaa igu qoran nolosha aniga ii khaaska ahayd intii ayna noloshayda kusoo biirin.
eenaan isbaran wixii ka horreeyay sidaan u noolaa marxaladihii nololeedan soo maray habdhaqankaygii sidaan ahaa bayaadkanna waxa iigu qornaa maalinkii aan is aragnay ilaa maalinkaan xidhiidhka yeelanay up to now marxaladda siday noloshaydu isku beddeshay heestani waxay ka mid ahayd heesihii ku qornaa walow ayna badnayn bayaadka waxay ii sheegtay inay iyaduna buug u gaaro xusuus qora ay imika samaysan doonto isna bayaadkan uu u beddelo buug maadaama warqaddu si fudud u lumi karto waxaan u sheegay intan qoranna waan wareejin nolosha cusub ee soo socotana waan wadi buug baan ku qori laakiin waxaa ballana amba aan calaf isku yeelano amba inaan isku yeelan inuu bayaadkani ahaanayo qayb ka mida noloshayda shaar kastoon beddelo surwaal kastoon beddelo ay noqon doonto waxa ugu horeeya in jeebadayda ku ridanayo caways farxadle kadib waanu isa soo raacnay xaafaddii baanu nimid waxaan ku soo ballannay habeenkaa habeenkiisa haddii ilaahay nagu simo sanad kadib inaynu is arki doonno adna noloshaada wado adna tayda raacanaya aynu iskula nimaadno wixii inoo qabsoomay halkaynu gaadhnay waxaa inaga dhiman intaa u dhaxaysana aynu kasoo wada xidhiidhno taleefanka sidii baanu kusoo kala hoyanay habeenkani waa habeen labaadoo ka duwan habeenadii hore waa habeen farxad leh ma qiyaasi karo sidaan habiga u ahay ma qiyaasi karo sidaan u naxariis badanahay ma qiyaasi karo anigu waxaan dareemayo sidii baan ugu kale usoo wada xidhiidhi jirnay aan taleefon uga soo wada hadli jirnay waxaan ahay laba qof oo isgarab istaagaa hawl kastoo timaada waxaa xaqi u yimid ayaydeedii soo karsatay misena ay la joogtay way ii soo sheegtay waxaan ka qayb galay aaskii waan u soo tacsiyadeeyey waan ka soo laabtay dareenka ay dareemaysaan la dareemayay waayo waxay u ahayd hooyadeedii korsatay iftiinkii noloshay u ahayd hooyo maaha ta ku dhashay laakiinse hooyo waxaan ku tilmaami karnaa ta ku korsatay ee marxalad kastood ku sugan tahay ku garab taagnayd inantii waxaa ku soo laabatay gurigii waalidkeed waxay isfahmi waayeen carruurta ay la dhalatay waayo may soo wada korin waxay leedahay dabeecad ka duwan dabeecadda ay leeyihiin carruurta la dhalatay aabbaheed wuxuu go'aansaday inuu ka kaxeeyo inanta magaaladan laascaanood maadaama ay ka bix weyday xusuustii ayadeed maadaama ay isfahmi laayihiin carruurtii ay la dhalatay maadaama ay isfahmi laayihiin gurigii ay ka midka ahayd mar walba gaar isku saarayso mar walba odhanayso aniga ayeydey aniga hooyaday sidaasay odhan jirtay aniga hooyaday saasay samayn jirtay aabbaheed wuxuu go'aansaday inuu soo dejiyo magaalada burco si ay halkaa ugu noolaato ganacsi yarna uu uga sameeyo si ay ugu mashquusho uga shaqaysato reerkana intay isnici lahaayeen ay iyadu sidii awalba reerka aan uga maqnayd uga maqnaato inantii way ogolaatay
waxay u kicilitintay magaaladii Burco oo ii soo sheegtay walow aanan jeclayn fogaanshaha iga fogaanayso, haddana waan ku qasbanahay inaan sii nabadgeliyeeyo, waayo waxay iyada nafteedu jeceshahay waa qasab inaan ana la jeclaadaa. Qofka markaad si dhab u jeceshahay maaha inaad kasoo hor istaagto waxyaaluhu isagu farxadda ku dareemayo. Waxaan sawirtaa maanta markay Burco tagto ee masaafo kuu jirsato, noloshaadu si isku bedeli doontaa, maxaa kuu dambeyn doona. Haddana waxaan ka fikiraa awalba sanadkii hal mar baad is arkayseen, taleefon baad ka wada xidhiidhiseen, iminkana waaba la casriyoobay, waxaa la bartay social mediahii, halkaasaad ka wada joogi doontaan. Aroornimadkii way soo baxday, waxaan soo gaadhsiiyey halkii gawaadhidu ka baxayeen, waan soo nabadgeliyeeyey. maan awoodeyn inaan usoo raaco Burco, waayo keligeed bay taraaga soo galaysay, aabaheed Burco uga soo horreeyay. Shaqadan aan hayo qofkii iga reebi lahaa ayaa isna hawl yeeshay, marka anigu jaaniska wuu iga xidhan yahay. gaadhigii raac, la dhaqaaq, iska soo noqday. Muddo kadib inantii waxaan ka wada xidhiidhnaa khadka Facebook, baan ka wada xidhiidhnaa, sidoo kale call baan ka wada xidhiidhnaa. Xidhiidhkayagu ka sii adkaaday kii markaanu magaalada wada joognay. Jimco walba midka kale wuxuu u diri jiray hadiyad. Waxaan noqonay dad noloshay ku nool yihiin ku faraxsan. Iyaduna halkii bay ganacsigii ka bilaabatay, anna halkii baan shaqadayda ka watay. Waan dallacay, secretary baan noqday, isla dhakhtarkii aan ka shaqaynayeen waa shimaanka ka ahaa. Dhakhtarka imika waxaan ka shaqaynayaa 2 sano. 2daas sannadood nolosheedu way qurux badan tahay, iyaduna qayb bay ka tahay. Waxaa la gaadhay sanad guuradii, waxay ii sheegtay inay magaalada ku soo noqonayso, reerkana soo booqanayso, isla markaana ay imanayso waqti ka horeeya waqtigii sanad guurada. Way timid, halkii baan isku aragnay. Markaan is aragnay kadib inantii way noqotay. Inantii markay noqotay 3 bilood kadib waxaan ka dareemay xidhiidhkii inuu soo yar gaabinayo, si aan sidii ahayn inuu xidhiidhku soo socdo. Laakiin kama daalo, nafteeda waan qanciyaa. Mar walbana waxaa isku maaweeliyaa shaydaanku iyo kuugu sheekaynin masaafada aad kala fogaateen. Noqo qof strong ah, xidhiidhkiina waa sidii hawshaa ku yar badatay. In yar kadib waxaan waayeyba hadalkeedii. Meelihii aan kala hadli jiray oo dhan ma joogto. Waxaa jiray wiil aan saaxiib ahayn, sheekadayda ogaaday waqti aan sii fogeyn, sanad guuradeedii 3aad ogaaday. Kadib wiilkii baan la tashtay, waxaan ku iri
inantii aan sidaas oo dhan nolosha usoo qaybsannay farxadda ku wada noolayn markay iga tagtay sanad guuradeedii dib uma arag. muddo yaroo kooban oo dhowr bilooda unbaa sii wada xidhiidhnay. muddadaasina waxay ahayd muddo yaroo xidhiidhku gaabis ahaa. imikana maba hayaba. talow inantii ma magaaladii kasii baxday, ma wax kale la soo darsay? waxaan doonayaa inaan magaaladii Burco aado si aan inantii usoo raadiyo, adiguna shaqada aad iga sii reebto. ma maqnaanayn doono in badan, waxaan maqnaan doonaa hadday ugu badato 2 wiig. waxaan kaa codsanayaa inaad shaqada iga sii reebto. wiilkii wuxuu iigu jawaabay, ma aha inaad israaciso qof dumara, ma aha inaad israaciso qof isaguba kaa maarmay. anaa inan kale ku baraya, iska baro qof kale, nolol cusub iska samayso. marka horeba sheekaydi ka dhaxaysay, maxaad taraa ku geynaya nool kaa bixinaya ilaa Burco ku geynaya? kamaan yeelin. waxaa markasta dhagaysan jiray hees waxay odhan jirtay sida tan: meelan jooga habaaday muuqdo midabkaaga ii hormaraaye, naftu muuqato oo marmi waydo musanawdo oo ku dulmeerte, marwadu maroon ku matala marma xidhate, miirkii bay la tagtee meeday mooye meeday meeday. deeta wiilkii wuxuu iigu jawaabay, waar waad xanuunsanaysaa ee reerihiini cilaaja kugu xidhaan, mise talow anaaba tolkuugu dhowow kusii geeya. kaftan baan ka moodayaa, isagu ima dareensana waxaan dareemayo. markii baan dhaqaaqay, gaadhigii baxayaan raacay, Burcaan aaday. magaaladan dhan haddaba kasoo dhexel inantii. socodkeedu wuu ka dugan yahay hablaha, labiskeedu wuu ka dugan yahay hablaha, haddana weli isheedu ma qabanayso. waxaan ku maqanahay muddo 5 habeena, welina ma hayo. waxaa laygu tilmaamay goob, waxaan aaday goobtii, mise waaba iyadii. bar ilaahay bay ka caafimaad qabtaa, way iska shaqaysanaysaa, way iska faraxsan tahay, nolosheeda iska wadataa. meel baan istaagay, waxaan ka fikirayaa, waa tan, way nabad qabtaa, way caafimaad qabtaa. talow sidee wax u jiraan? xaggeedii baan imid, waan soo hor istaagay, waa iga naxday. isla markiiba waxay igula hadashay hadallo isdhaafa. waxay igu celcelinaysay, xilli maad timid, goor maad timid, maxaad iigu soo sheegi weyday inaad imanayso? adigoo waxaan ogahay sameeyey, miyaad maantana halkii aan joogay iigu timid? iga hor dhaqaaq, wejigaagana iga qari. waan naxay, waan afgariiray, waxaan is idhi talow sidee wax u jiraan? maxaa kugu dhacay? maxaa taleefanadaada xidhay? dad saasoo dhan noloshayda uga baxdood uga fogaato, waxaan ku sugnaan doono miyaad ogaanaysaa? xataa hal mar isma odhanaysid miyaa qofkii aad magaaladii kaga timid
xaaladiisun wareyso, sidee wuxu jiraan. Waxay iigu jawaabtay, markaan magaaladii ka imid ayaad shalmad raac noqotay. Shalmadii sii dhaqaaqada waa sii dababilig leedahay. Sidee nolosheeda iyo mustaqbalkayga kuugu aamini karaa? Maaniga waan nahay waxyaalaha qaar aad isku og tahay markiiba xal degdegaad keentaa. Laakiinse tani may ahayn waxaan xal degdeg u keeni karo. Way igu ballaaratay dhinacaan u qaadana waan garan waaye. Waxay iga codsatay intay hawsha dhammaynayso inaan meelaha soo fadhiisto si aan hadhow u wada hadallo aan waqtina iskula helo. Waan dhaqaaqay, gidaar baan istaagay. Waxaan taaganahay 2 saacadood. Cagihii bay gararay. Isma laha qof baa ku sugayo la ballantood ku tiri isii sug. Qof baa noloshaada ku jiray. Khilaaf bay idin dhex yaalay. Xal baad raadinayseen. Hawsheeda iska wadataa. Saacadu waa 11 habeenimo. Way rawaxday. Gaadhi baa u yimid. Sidii bay ku rawaxday. Anna halkii baan taaganahay. Aroornimadkii ayaan 6 subaxnimo soo kalahay. Halkii baan soo fadhiistay si aan u kala helo jawaab iyo waxyaalahan dhexdeeda soo galay. Waxay ii sheegtay way timi. Markay timi waa iswareysanay. Waxay ii sheegtay inaan qof xun ahay, aan khiyaameeyay, ayna igu aamini karin nolosheeda. Waxay ii sheegtay inay uga sheekaysay inan labadooda isku taqaanay. Una sheegtay inay sidaa wuxu jiraan. Iyaduna si ay nolosheeda iskaga kaa fogeeyo inaan kuula soo xidhiidhi waaye, kuu soo raadin waaye, xanuun kasta iyo dhibaato kasta oo marayana aan u qarsaday. Wuxuu u sheegay inayna waxaa waxba ka jirin, wax laga been abuuranayana yahay. Waxay tustay caddaymo. Caddaymaha ay tustay nasiib darro muu ahayn nambarkiisa. Waxaa jira nambaraan isku eeg oo hal nambar ku kala duwan. Wuxuu u xaqiijiyay inaanu nambarkiisa ahayn, balse yahay nambar u eeg. Halkii labada nambar ku kala duwan yihiinna, labada nambar ay ku kala duwan yihiin 2 nambaroo isku xiga. Laakiin 2 isagu 2 ahaa, nambarkan caddaynta loogu hayaana uu weyn yahay. Inantii way nafistay. Waxay u sheegtay inayna mar dambe dhagaysan doonin dadka warkooda. Xidigtii haweenkeen xulashada ku helaaye, xaashee kamaan tegin xubbigiyo kalgacalko, xagaygan sidiiban waxaan baarsanee garo. Xididada wadnaha iyo xubnaha jirkii, xiskan adiga kugu maqan, xumaan kuma quudhee. Yaan layna kala xamayaan, yaan layna kala xadin, xakamaha jacaylkana xajiyo ha sii dayeen. Xural cayl la mudiyee naf jacayl xambaarsho, xiisii adduunkuna xagaagu ku koobtaa,
xubnaheena kala maqan kala jira xabneherban xanuunkooda dadayaa habeenkiina xaybad iyagu lahaashaa yaan layna kala xamayaan yaan layna kala xadin xakamaha jacaylkana xajiyo hasii dayn. Erayada heestaasi waxay ahaayeen kalaamkii ugu dambeeyay kaga soo dhaqaaqi doona inanta. Waxaan usoo kicitay halkii magaaladii Laascaanood. Waxaan kusoo laabtay wiilkii jawi ka duwan jawigii horeen kaga tegay. Waan faraxsanahay. Halkii waa shaqadeydii ka galay. Waan iska watay. Waan soo wada xidhiidhnaa sidayadii aan isku nahay. Sidaan siduu ahayn ee siduu soo wada xidhiidhnay ayaa waxaan go'aansaday maadaama waqtigan xidhiidhka soo sameynay waqti fog ahaa muddo dheer ka soo wareegtay maanta aan noqday qof tabcaday gaar isku taagay faamiliga garab uga baahnayn iswadi karaya inaan nolosha wadaagno. Inantii way iga ogolaatay. Waxaan ku ballanay inaanu ka dhigano xafladda meherkayaga maalinkii barashadeeda hore sanad guuradii ku beegan tahay. Waxaa ka xiga dhowr bilood 7 bilood 7 bilood waxay igala badan yihiin sanado waayo farxadda maalinta ma sugi karo. Iyaduna markasta waxay igu maaweelisaa intii ka badnayd buu sugaysay waqtiga yaree kooban ba sugi laadahay. Intii ka badnayd buu inu samreynay ma bilahan yaree kooban ban isku samri laanahay inuu isku sugi laanahay si aynu taalo ugu sameyno jacaylkeena. waagaa barya gabalkaa dhaca sidaan sidii ugu jirnay aanu isku maaweelinaynay ayaa maalin maalmaha ka mida waqti aanan ka baran waqtiyadii ay soo wici jirtay ayay soo wacday. Waxay iga codsatay inaan shaqada ka yara baxo isla mar ahaantaana ay arrin ku soo korodhay. Layma ogoleen markaa fasax shaqa socotay. Waxaan ugu jawaab celiyay anaa kugu soo celinayaa ma wax dhibaa jira may dhib ma jirto laakiin hawl adag baa soo korodhay. Wax walbaana haddii xal degdega gaari weyno way isbedelayaan. Shaqadii ayaan sii waday ilaa 12 duhurnimo ay gaarayso Jaanis helayo. Meeshu waa dhakhtar. Dhakhtarna waad garanaysaa shaqadiisa. Isma kala garanayo waxaan qabanayo. Dad lacag ayuu bixiyay. Waxaan ka soo qaaday inayna bixin oo lacag baan ku qabsanayaa. Qaaraan bixin waan iska sii deynayaa. Dadku si u kala horeeyeen uma shaqaynayo. Gabigayguba maskaxdan ka maqanahay. Waayo waxyaalo kale ka fikiraya maxaa soo kordhay waxay noqon doonaan. Adigu waxa la gaaray waqtigii aan shaqada ka bixi lahaa. Hore baan ka garaacay. Waxay ii sheegtay in aabaheed la soo hadlay isla mar ahaantaana uu ku yidhi wiil in adeerkaaya oo dibadda ka yimid baan ku siinayaa. Habaar iyo ducana waad kala dooran. Inuu isagu markaa xal la yimaado guurkoodiina soo dedejiyo. Waxay kale iigu dartay in haddii ay labadoodu iswaayaan
adduunka ay ka tegi doonto, sababna u noqon doonto inan iyadu nafteeda ku khamaarto, isla markaana ay nafteeda disho, maadaama oo qof kale ka helayn amba wiilkan aabaheed ku darayo amba wiil kaleba ayna ka helayn farxad agtiisa. hadal badan, la talin badan kadib iyana waxbay ka qaadan weyday. Anna waxaan kula talinayay maadaama aabahaa kuu dooray, aniga xanuun kasta aan maro nolosheeda yaan xataa hadan doono qof kale salaamu calaykum odhan, laakiinse adigu reerkaaga iska dhiso. igama yeelin. markasta waxay igu soo jawaab celinaysay 4taas sannadood een waqtigayga kusoo siinayay jacaylku dhab kaamu ahayna waad ila jelaysay. anna xanuunkayga gudahaan dareemayaa, iyaduna jawaabahaasi ee lahayd. waxaan isla gaadhnay inaanu nolosha ku midowno, waqtigii aan ballanayna hore uga soo dhigno, sida ugu dhaqsaha badanna meherkayga uu dhaco. xalku wuxuu noqday inaan wax walba soo dedejiyo. waxaa la gaadhay waqtigaan aabaheed lasoo ballami lahaa, intii aanan ballansan odayaasheeda, si aan inanta u weydiisto, kadib odayaashii wax u ballamiyo, halkaa hawsheedu ka bilaabanto. aabaheedu ila ballamay huteel ka mid a huteelada Burco ayaanu iskugu nimid. markaan inanta weydiistay, wuxuu ii sheegay meheblaayo taka yar ayaad doonaysaa. may adeere heblaayaan doonayaa. may heblaayo wiil ay ilmaadeer yihiin baan u hibeeyey, lagamana yaabo inaan ballantii aanu gallay aan ka noqdo. markaa khayr baan kuu rajaynayaa. war farxad la kalamaan iman. aabaheed way igu adkaatay inaan iyadii intaan la hadla idhaahdo aabbahaa nin buu kuu hibeeyey, wuxuuna ii sheegay inaanu ka noqon karin ballantii ay wada galeen. waayo waxay ii sheegtay maalintii hore inay nafteeda ku khamaari doonto. waxay igu soo yaraaday adduunkii. waxaan go'aansaday inaan iskaga fogaado. waxaan u kiciltimay xaggaagii Jabuuti. Jabuuti baan iska galay. waxaan doonayay inaan Yaman usii dhaafo, oo sidaaba uga haajiro meel ay Soomaali joogto. waan ku dhaqaaqay. Jabuuti anoo jooga ayaa waxaa dhacay inanta meherkeedii. inantu wiilka raalli bay ka ahayd. may ahayn wax qasaba. may ahayn wax aabaheed ku qasbayo, laakiinse gadaal baan ka ogaan doonaa. ee waxay ahayd waqtigii aan isku dhacnay ayay wiilkan isbarteen. waqtigaan anu laascaanood uga iman doonaan Burco ugu iman doono, ee intii meel isdaajisa igaga rawixi doonto, ayay ahayd waqtiga isbarteen wiilkan. waxay odhan kari weydayuun wiilkaasoon waqtigaas baranay ayaan kaa raacay, ee nabadgelyo. waan la soo hadlay. si kastoo wax kastoo jirana waan u sheegay inaan waddanka uga fogaaday iyada darteed, si iyadu farxaddeeda u hesho. aniguna aan uga fogaado meel lagaga hadlo afka Soomaaliga, kana sii bixi doono imika halkan aan joogo, adduunka dhinac ka geli doono.
inantii muddo yar kadib iska aqal gashay, nolol kale iska bilaabatay, iska faraxday. Anigu intaa waxaan ka fikirayaa talow macaawa geerideeda lagu soo sheegay mise aroorta. Gabalku mayadoo nool buu dhici doonaa, waagu mayadoo nool buu berigi doonaa. Shawaabo gabadh aan waxaan iyo jacaylkii iyo dhibtaan soo wada marnayba laga masaxay, farxad iskaga nool, reerkeeda iska dhaqanaysa, iska joogta. Waddanka ka baxay, iska tegay, waxay sii tahriiban, sii rafaadeen, sii socdaba adduunka dhinac ka galay, soo noqday sanada kadib. Inanta waan soo xiriirinaa, waan soo wada hadalaa. Markaan soo noqday kadib ayaa wax kastoo xaqiiqo ahidoo jirta ogaaday. Hadiyad baan xagaa uga soo qaaday, hadiyadii siiyey. Waxay haysataa 3 caruura. Nolosheeda cusub waan ugu hambaliyeeyay. Intaa aan maqnaayo soo wada hadli jirnayna waan la soo talin jiray, waan u soo caqli celin jiray inay waxaan calaf tahay, in waxaan qoraal Rabbi yahay. Still aanan qof baran, aanan iyada iloobi karin, haddana aan samir qaadayo. Kadib markii aan ogaaday wax kastoo jira iyo noloshu sidaa yare dhaqsaha badan la iskugu bedeshay, ayaa habeenada ka mid ay soo garaacday. Waxay ii sheegtay in ayna ka helin farxaddii ay doonaysay, sidii ay doonaysayna ayna ula noolayn. Wiilkani yahay wiil leh 2 xaas, qurba jooga, nolosha ka dhacay, mukhaadaraad isticmaala, doonaysa inay iska furto, isagana ay sidaa markaa nolol ku wadaagaan. Weli dareenkii jacayl uu jiraa een u hayay, walow aanan sidii u ahayn, haddana wax waa jira oo feelinkii waqtigaas uu jiraa. Haddana marnaba ma jeclaysanayo qoys islaama oo dhisan inuu halkaa ku burburo. Waxba igama gelin 3 awlaad ay wadato. Aniga iyadaa noloshayda ahayd, halkan maanta taagan iyadaa ka dambayso sabab ahayd. Kamaan ogolaanin inay reerkeeda soo dumiso. Way igu soo noqotay sidii oo kale. Ugu dambeyntii way ka duday reerkii ay joogtay, caruurtii way ka haysatay. Waxay degtay gurigii aabaheed. Aabaheed wuxuu u sheegay inayna halkan la fadhiyeyn, oy soo duday, oy ku noqotay gurigeedii. Kama yeelin. Waxay isku diyaarsay inay keligeed guri karaysato, caruurteeda u tabcato, wiilkuna ay warqadda looga qaado. Haddii looga qaadi waayena ay fasakhaad doonato. Tallaabo kastee qaadaysa way la wadaagtaa. Anna jawaabta keliya siinayaa wuxuu yahay: ha baabiinin gurigaaga. Qoys dhisan baa tahay, awlaad baad haysataa. Awlaadaada mustaqbalkooda dhis, ha baabiinin. Ma biil la'aan baa ku haysa, ma daryeel la'aan baa ku haysa, maxaa jira? Su'aal kastoo weydiiyo waxay igaga jawaabtaa maya, waxa waan haystaa. Keliyata waxay igu soo celcelinaysaa ma haysto sidii aan jeclaa inaan u noolaado, ma haysto farxaddii aan ku riyoonayay. Muddo kadib isjiid badan
wiilkina saddexdii dumar ahaa ayuu qabay bay is ogaadeen isagu yahay qof nolosha ka dhacsan. aabaheed wuxuu go'aansaday sidii inantiisu doonaysa inuu u yeelo, isla mar ahaantana wuxuu uga soo qaaday warqadii. maanta waxay ku nooshay magaalada Hargeysa, saddexdii ubad ahaa bay haysataa. anna weli dabadeed qof dumara ma baran, kamaan aamin bixin oo malihii aamin male, laakiinse qadarka Rabbi baan aaminsanahay. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa calaf khayr qaba hadduu ifka igu tala galay inaan reer yeesho, in ilaahay meel aan ku dego ku xasilo. dhibaato badan, fiilin badan, waxyaalo badanoo soo dareemay aan ku ilaawo. waxaan jeclaystay inaad soo siisaan talooyin, waayo maanta waxaan ahay qof qura, saaxiib lama tashado. waan ka go'ay asxaabtii, cid waloo aan israaci jirnay waan ka go'ay. waxaan ahay ninka keligiis ka nool, ilaahay iska tala saarta, waxba ka xumayn. haddana waxaa wanaagsan inaad hesho fikrado ka duwan fikradaha adiga kaa dhex guuxaya. waxaa wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaad hesho fikrad ka saxsan fikradan aad adigu aaminsan tahay. insha allah in cid kastoo is jecel ilaah waxaan ka baryayaa inuu jacaylkooda usii waaro oo nolosha ku dhammaystaan farxad. intii ka midho dhalisay waxaan leeyahay allah idin barakeeyo. inta aan weli ka midho dhalin ilaahay waxaan uga baryayaa inuu calaf iskugu daro. waad mahadsantihiin. ugu dambeyntii waxaan naftayda iyo nafihiinaba ku waaninayaa inaan noqono kuwa dadka jecel quluubtooda ka jebinin, khiyaamaynin walaalahooda jecel ee u hibeeyey nafahooda.